madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo hadal jeedin ka sameeyay dagaalka u dhaxeeya ciidanka difaaca ee Puntland iyo kooxaha argagixisada ee Daacish oo ka socda buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari waxa uu ku dhawaaqay in la galay wajigii labaad ee howlgal lagu ciribtirayo kooxahan argagixiso ana uu sheegay in ciidanka Puntland ay sameeyeen nafhur si argagixisada loo dabargooyo ku dagaalamayaan daruufo iyo dhul adag lana dagaalamayaan cadow argagixisa oo jid kasta u qaadaya sida ay isaga joojin lahaayeen gulufkan lagu tirtirayo laakiin dhammaan ciidanku waa adkaysteen oo ay gudanayaan waajibaad ka saaran una taagan yihiin sida ay Puntland u noqon lahayd goob ammaan ah madaxweynaha Puntland waxa uu tilmaamay in maamulka Puntland ka go'an tahay in argagixisadu aysan deegaanadooda ku noolaan dadweynuhuna uu ugu hambaliyay sida ay u garab istaageen ciidanka hawshan baaxadda loo qabanaya sida ay shacabku nabad iyo horumar u heli lahaayeen uguna noolaan lahaayeen Dani waxa uu ku dhawaaqay isku duubni bulsho si looga hortago dhagaraha kooxahan argagixiso ay maleegayaan talaabooyinkii ugu dambeeyay ee dadweynuhu ay kala shaqeeyeen ciidanka ayuu ku sifeeyay mid muujinaysa sida ay Puntland rayidka uga go'an tahay shacab iyo dawladba in la dagaalamo kuwa nabadda iyo horumarka diidan ee argagixiso ciidamada amniga gudaha iyo shacabka oo iskaashaday ayaa ka hortagay toddobaadyadii ugu dambeeyay weerar argagixiso oo ay kooxahan ku doonayeen inay dil ugu geystaan gumaad shacabna ku fuliyaan waa laga hortagay lana dilay qaybna la qabtay shabakada argagixiso oo weerar abaabulan waday taasoo ka dhigan in wada jirka guul lagu gaaray madaxweynaha ayaa cadeeyay in isku tashigu uu yahay jidka kaliya oo argagixisada looga adkaan karo lahaanshiyaha dadka ee dalka ayuu sheegay inaan cidna looga haybaysan doonin in argagixisada oo waddo kasta u qaadaysan howlgalka lagu istaajiyana aan laga hari doonin wajigii koowaad ee argagixisada waa la jabiyay madaxweynaha Puntland wuxuu ku dhawaaqay in wajigii koowaad ee kooxahan argagixisada oo dagaalka lagu jabiyay oo laga saaray masaafo deegaano muhiim ah oo ku yaala buuraleyda Calmiskaad wuxuu sheegay in ciidamadu qaadeen howlgal geesinimada lagu yareeyay khasaaraha laguna jabinayay cadowga taas oo guul wanaagsan hadda laga gaaray waxaana uu sheegay in howlgalka la sii kordhinayo 24 saac la soo dhaafay Puntland ayaa ciidamadii ugu badnaa mar kale u daabushay buuraleydan iyadoo dhowr dhinac laga weerarayo deegaano muhiim ah oo xoguhu cadeynayaan inay ku sugan yihiin horjoogayaasha kooxdan argagixiso ee ajnabiga madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dagaalka ay wadayaan ilaa deegaanada Puntland ay noqdaan goob ka caagan ficil argagixiso wuxuu sheegay in wajiga labaad saddexaad ilaa afraad uu soconayo howlgalka oo wadajir cadowga looga weerari doono badda dhulka iyo cirkaba isagoo tilmaamay in Puntland ay ku filan tahay inay dabargoyso kooxaha diidan nabadda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed waxa la dagaalamay ajnabi soo duulay madaxweynaha Puntland waxa uu cadeeyay 90% kooxaha argagixiso ee ka dagaalamaya buuraleyda Calmiskaad ay yihiin shisheeye soo duulay kuwaasoo yoolkoodu yahay inay ka hortagaan nabadda iyo horumarka Puntland Soomaaliya caalamka taasna aysan Puntland marnaba aqbali karin beesha caalamka ee dalalka dariska ayuu ugu yeeray inay qayb ka noqdaan howlgallada lagu ciribtirayo kooxaha argagixiso ana uu sheegay in Puntland ay u qaadatay duulaanka sida dhammaan loo tirtiri lahaa kooxo ka soo horjeeda nabadda geeska Afrika ajaanibta waa in lagu xadgudbin waana in dawladda looga dambeeyo sida la ogaaday tirada kooxaha argagixiso ee lagu la dagaalamay buuraleyda Calmiskaad inta ugu badan waa ajaanib toddobaadkii ugu dambeeyana waxa la filshiriyay weerar argagixiso oo ay geysan lahaayeen kooxo ajaanib ah oo gudaha Puntland ganacsato iska dhigayay kuwaas oo ciidanka amnaanku qayb qabteen qaarna toogteen waxaana kaliftay in dad badan ay ka caroodaan ficilada ajaanibta ay soo dhaweeyeen inay weerar bahalnimo ugu abaalgudaan inkastoo ay Puntland soo dhaweysay dad badan oo ka soo hayaamay colaadaha ka jira dalalka dariska gaar ahaan Yemen iyo Ethiopia haddana qaar ka mid ah ayaa ku lug yeeshay ficil argagixiso taa oo ka caraysay shacabka Puntland waxaana toddobaadkan meelo ka mid ah deegaanada Puntland laga arkay ficil la cambaareeyay sida ay xukuumadda Puntland sheegtay in laga talaabo qaaday dadkii sameeyay kuwaas oo ka dhanaha xuquuqda aadanaha ee ajnabiga madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dadka Puntland lagu yaqaan martisoorka iyo soo dhaweynta dadka dhibaataysan balse ay jiraan dhinacyo ku dhex darsamay oo ay ka shaqeynayaan hay'adaha ammaanku sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dhibaatada ay geysanayaanna aan loo saarin karin gabi ahaanba dadka soo galootiga aana uu tilmaamay in hay'adaha dawladdu ay ka shaqeynayaan sidii dadka ajaanibta u noqon lahaayeen kuwa tixraacyo sugan leh baaridna loogu samayn lahaa Puntland way isku tashanaysaa madaxweynaha Puntland ayaa ugu yeeray ganacsatada iyo culimada inay codkooda kor u qaadaan waxa uu sheegay inuu hadda hooseeyo codkoodu ka dhanka duulaankan argagixiso balse ay dawladdu dareensan yihiin culeysyada ay soo mareen
loona baahan yahay inay hadda dhiiradaan maadaama ciidamada dawladdu burburiyeen shabakadihii argagixiso kulana dagaalamayaan halka ay ka soo aabuli jireen dhibaataynta ganacsiga iyo laynta waxgalka Puntland. Dani waxa uu sheegay in kooxaha argagixiso ee Daacish ay markii ugu horeysay isticmaaleen diyaarado qaraxyo lagu xiray oo drone taas oo aysan hore argagixisada u samaynin, balse waxa uu tilmaamay in Puntland guul ka gaartay oo fashilisay isku daygoodii ciidamaduna ay ka guuleysteen, taas oo cadeeyay inay ku timid isku tashiga maamulka, niyad wanaagga ciidanka, ka goonaanta in hawlgalkan argagixisada deegaanada Puntland laga suuliyaa. Dani wuxuu tilmaamay in Puntland ay isku tashanayso dagaalkan oo malaayiin dollar galaafanaya dhinaca dhaqaalahana ay canshuurteeda isticmaalayso, dadweynaheedana taageeradooda ay ku wada hawlgalka oo garab istaaga shacabku u yahay waxa ugu ballaaran ee guusha hawlgalkan la dagaalanka argagixiso xilligan keenaya. Laba isku day oo argagixisadu ay doonaysaa in ciidanka ku jabisaba si degdeg ah ayaa looga jawaabayaa. kooxaha argagixisada sidaan hore u sheegnay waxay la yimaadeen xeelado ka baxsan inta ay Soomaalidu taqaanay marka laga hadlayo adeegsiga miinooyinka qarxa ee dhulka la gasho iyo diyaarado iswada oo qarxiya. labadaasba hore loogama aqoonin fagaaraha dagaalka, balse kooxdan ayaa la timid oo doonaysa inay isaga hakiso hawlgalka ciidanka Puntland. madaxweynaha Puntland Siciid Dani intuu hadaljeedintooda waxa uu sheegay in labada isku dayba ay fashiliyeen oo qalabkii ka hortagi lahaa degdeg loo gaarsiiyay ciidanka oo laga guuleystay. tan waxaa lagu fasiray inay muujinayso in Puntland ay qaadatay inay meel uga soo jeensato dagaalka argagixisada. deegaanka annaga ayaa iskale. haljeenta Siciid Dani ayaa ku soo gabagabay in Puntland dhulkan ay leedahay oo aysan lahayn shisheeye iyo ajaanib argagixiso caalami oo meel kale ka timid, ayna garanayaan god kasta oo ay ku dhuumaalaysanayaan kaga daba tagayaan oo aysan marnaba dhici doonin in ciidan Puntland iyo argagixiso caalami ay hal goob wada joogaan. waxaana uu sheegay in askariga furinta jooga, madaxweynaha talinaya, wadaadka cilmiga meerinaya iyo hooyada ganacsanaysaba ay isku dareen ka yihiin in argagixisada la ceebtiro, iskuna waafaqsan yihiin oo ay wax kasta u hurayaan, tan oo ka dhigan in dadka deegaanka leh oo keliya ay baaqi ahaanayaan argagixisadana laga guulaysanayo.